mudane madaxweyne waxaan leeyahay dadka Soomaalidu waa dad colaadi kama dhaxayso waa walaalo laakiin waxaad moodaa inaga siyaasiyiinta ayaad moodaa inaynu kala dhaqaajinayno waxaan leeyahay maanta xamar oo joogtaan ha ka tagina ilaa xalkii Soomaaliya aad si wada jira guud ahaanteen aan uga gaaro aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku dheeraaday waan kugu soo dhaweynayaa waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay salaanka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha odaytinimada iyo taariikhda uu ku leeyahay iyo qiirada weli baaqiga ku ah Soomaalinimada iyo waddankani meesha uu hadda marayo meeshuu ka yimid iyo dareenkiisa mar walba uu cabirayo waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo waxaan aad ugu faraxsanahay iyadoo xaaladan lagu jiro adag inay maanta fursad ii noqoto guddiga joogtada ee aqalka sare inaan kelmad hortooda ka idhaahdo aan isleeyahay way mudan tahay xilligan iyada ah inaan kelmadda idhaahdo waxaan ka imid Jubbaland oo xarunta ku meel gaarka Kismaayo oo aad ogtiin deegaankaasi midka uu yahay Soomaaliya markii la qeexayo culayska uu ku yaala shabaabku dhibku ku hayo Soomaali ku dhan tahay matalaada Soomaalidu siday ku tahay bays u noqon karta deganaanshaha Soomaaliya muraayadaha laga fiirsan karayo inay tahay koow marka caasimadda laga tago waayo waa meel qof kasta oo Soomaali oo tagay ona marti ku ahayn waxaa jiro culays gaar ah ku ah marka siyaasadda laga tago shabaab oo had iyo jeer ay uga fursadda uu ka helayo gobolkaasi ay ka bedelan tahay midda uu ka helayo Soomaalida inteeda kale sababtoo ah qofka jabhadka ah ee dagaal ku jiray waxaa jira factor waxyaalo caawiyaa jira environmentiga ha noqoto ama bay'adu sida ay tahay bulshada ha noqoto iyo waxyaalo badan oo sabab u noqon karaya wuxuu gobolkaasi kulmistay qofkii jabhadnimo maray baa garanayeen inay tahay meel u saamaxayso qofku inuu ku noolaan karo oo asbaabtii nolosha uu ka heli karayo hadday noqoto biyo iyo hadday noqoto baadba ama ugaar ha noqoto ama nolosha kale ha noqoto inuu ku noolaan karo oo uu ka heli karo dhul uu ku dhuunto iyo kaymo uu ku qarsoonaan karo oo maanta ninka gobolada dhexe ku nool iyo ninka iyada ku jiray way kala duwanaanayaan nooca nolosha ay u kala noqonayso wuxuu ugu noolaan karaa in mujtamaca Soomaalida oo dhani ay degan yihiin oo markaad u fiiriso dib taariikhda gumaystayaashii waxay ka shaqayn jireen wax la yiraahdo fariq tasud ama qayb iyo xukun oo macnaheedu yahay bulshadaas in kan la kiciyo la soo qaado kan laga hor keeno kan si ay ugu suurto gasho markaa isagu inuu ku dhex noolaan karayo waxaa intaa u sii dheer xuduud dheer oo keena inay la leedahay Kenya oo ay u sahlanaan karto inay gali karaan marka dambana ay propaganda media ay ka heli karaan ama dadka ajnabiga ee u soo gudbaya ay ugu iman karaan meel ay uga soo gudbi karaan ay noqonayso sababtoo ah dhul duura iyo xuduud isku xidhan iyo waxa la yiri bali buuxiyo burub ku agyaal biciidku baadi goobiyo biciidku wax saas kale Soomaalidu la jirtay macnaheedu waxay tahay asbaabihii nimankaasi ay u jiri lahaayeen oo dhani waa midda sababta uga dhigtay ama webigaas ha noqoto ama dhulka kale ee iska keenta ha noqoto waad ogtiin marka culayska shabaabka uu lagu hayaay inuu yahay mid joogta oo maalin walba dagaal joogta aanu ku jiro waxa soo raaci kara waa dhulka buuraleyda waaweyn oo kala ah ee meel ay ku qarsoodaan ay heli karaan oo sidoo kale sababtoo qof lala dagaalamayo la raadinay meelba kuma noolaan karayo culayskaasi waxaad moodaa
waxaa waddanka jooga ciidamo aada u tiro badan oo amisooma ciidamo aada u tiro badan oo soomaaliya ama heer federaal ha noqoto oo xoogga dalka iyo inta la halmaata ha noqoto ama heer state ha noqoto dowlad goboleedyada iyo kuwa jooga ha noqotee shabaabku kama dhanna 5% ma dhanna tirada ciidanka intaan leeg laakiin maxaa jira oo dagaalkaasi u jiri waayo shabaabna intaa usii xoogaysanayaan oo maanta ay albaab walba waddankii cashuur uga qaadayaan oo dhaqaalaha u guranayaan oo dadkii u kala xukumayaan oon ognahay maanta magaalada muqdisho saamaynta ay ku leeyihiin sababtu waxay tahay waxaan lagu heshiinin in lala dagaalamo oo waxaa maqan hogaamintii intay isku xidho odhan lahayd war dagaalka aan galno oo ninka amisom ee joogay halkaasuu joogaa dhaqaalaha ku baxa waxba kama qasna maxaa dhimasho ku wata dhaqaalihiisana wuu heli karaa meeshiisana wuu joogi karaa dowladdii soomaaliyeed ee intay daba gasho odhan lahayd war annaguna waxaanaan wadanaa dagaalka aan galno oo wixii nagu wareejiya oo xoogga aan isu keenana weli ilaahay ma waafajinin go-aanka noocaasa inay qaadato taas markaa waxay keentay qof kastaoo ganacsada ama soomaaliya inuu laaluusho shabaab oo uu yidhaahdo anida maxay ga rabtaan kuwaa shaqo kuma lihiin ilaa xad ay qaadaan canshuurta shaqaalaha dowladda in qofka laga canshuurayo intaasoo ciidan iyo intaasoo fanana lagu bixinayo macnaheedu taasay tahay kuwa doonariska lacagta bixiyaana lacagtooda meesha ku baxday ma xisaabiyaan dowladda soomaaliyeedna ma xisaabtanto ciidankeedana inay dhisato ay ku waxaysato ma rabtee waxay rabtaa inay gacan shisheeye weli daba taagnaato kuwa amisom oo yimidna sabab ay geeri ku doontaan malaha iyagoo heli karaya inay intay taymkan joogaan isbedelaan oo 6 sano 5 sano askari hal dhufays uu ku jiri karayo oo naftiisa uu ilaalinayo intaasoo dhan waxaa ka macnaa markaa ay tahay annaga soomaalidii haddii aan annagu isku tashan lahayn oo aanan isla gurinayna ninba nin kale una daba guraynin oona xaaladiisa xaalad kale ka shaqaynin waan iska qaban karaa shabaab waana waxayn karaa laakiin nin walba maalintiisa meeshiisa loogu tegayaa taasina waxay sababaysaa inuu shabaab maanta waddanka xooggaana kusii yeesho dhibkaasina uu jiro cidda mas-uulka ka ahayd ee golayaashii sharci dejinta ee la xisaabtami lahayd dowladnimadii soomaaliyana iyagiibaa la mashquuliyey iyagiibaa isku mashquulsan iyagiibay ku adag tahay intay tala gaadhaan inay yidhahdaan war waddankani see wuxuu jira iyo dagaalka shabaabka sababta ninku damaanadba ma haysto intuu dagaalka shabaab kaga hadlo uu meeshuu raba hadhow ku gaari karaya ma haysto culayskaasi wuxuu nagu yahay mid gaara oo culays badan ku ah gobollada aan joogno oo maalin walba aan dhimasho naf iyo maalba aan ku weyno oo shalay baa ugu dambaysay saraakiil ay nagaga dhimatay howlgal lagu jiro oo miinadii iyo wixii meel walba ay helayaan mumtalakaadkaay u baahan yihiin iyo waxa looga baahan yahay meel kasta oo soomaaliya ka mida iyo dibaddaba ay kala soo degayaan oo meel walba ay u furan tahay taa waxaan odhan lahaa inta nool aan badbaadino oo bal dowladnimadii soomaaliya dib ha loogu noqdo oo dagaalka shabaabka iyo culayska dadka uu ku hayo hana lala ogaado oo hal obreshino isku xidhan oo hal mar la wada qaadaa ku filan aan wada qaadno culayskaasi waa midka shabaabkoo nagu haysto mid siyaasadeed baa jiray doorashaan gallay waxaan u malaynayaa waa bishii sanad baa hadda ka soo wareegtay dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka waxaan wax badan kala hadlaynay soo dirsada korjoogayaal doorashada annagaa xaq u leh jubbaland baa iskale jaartarkeeda iyo dastuurka federaalka wuu qorayaa isaga aan u hogaansano taasi waxay keentay madax adayg iyo dhaga adayg badan oo dowladdii xaggeeda nagaga yimid gaadhayna ilaa xad dagaal meelo badan saamayn ku yeeshay in uu ka dhaco oo siyaasadeed oo aad garan kartaan inta la isjiidjiidayey inta ay tahay waxaa iigu dambaysay magaalada muqdisho doorashadii ka hor intii ka dambaysay dhufays baan ku jira waxaan lahaa bal ciddii kuwa timaadiyo dowladda laguu soo dirsadana iska celi adiguna isgiiji oo nimankaasi yac iska dheh waad garan kartaan markaa maanta inaan muqdisho imaado hal sano kadibna dagaal dheer iyo dhufays lagu soo jiray waxaan ka hadlaynayna ay ahayd dowladda soomaaliya dowladdii soomaaliya guddoomiyaha uu ii yimid cabdi xaashi isagoo guddi aqalka saraa wata
hadalkan soo faray wuxuu ahaa guddoomiyow garbax baan ku ahay waxaan rabaa qoortayda lugtii aad ku xidhi lahayd inaad keento intaad madaxweynaha jamhuuriyadda u tagta waxaad ku tiraahdaa ninkaa waxaan rabaa inaan lugtaada ku soo xidhee dawbax ayuu u baahan yahay wuxuu uu sheeganaya halaga dawbax guddoomiyuhu qoortaydii meelu ku xidhi waaye jawaabtii uu soo celiya waxay noqotay qoortii meel lagu xidha in la waayo oo lugtii baa la waayo lagu xidhi lahaa wax badan wakhtigaas saxa marka taymkaas dheer iyo culayskaasi wuxuu gaadhay in waddanku intaad aragteen la kala maqnaado taladii ay baahdo burbur iyo kala tag wax badan uu sabab u noqdo marna maana diidin dowladda soomaaliyeed marna ma aanaan diidin roolka ay leedahay marna ma aanaan diidin waxa uu dastuurku siinaya inay qaadato laakiin mar walba doodeedu waxay ahayd dowladdu dastuurku waxa uu sharci u siinaya ha qaadato wuxuu annaga noo siinayana aan qaadanno I think middaasi inay tahay mid cad oo qof waliba uu garan karayo soomaalinimadu ma aha mid maanta aan kelmad ku sheeganayna waa mid ah in laga dhabeeyo oo aan garanayna waddankaani meeshuu soo maray aanu siyaasadda kumaalanaana jirin markii hadda guddoomiyaha cabdi xaashi ay Addis Ababa iyo tegayeen qoladaa uu sheegayo qoladaan la dagaalamayna bayd xilligaas marka kulama jirin isku khaalad maanaan ku jirin laakiin waqti fiican oo dowladnimo ay ahayd waxaan hadda aada ugu soo celcelinaya dowladda waxay ahayd war dastuurka aan ilaalino isagaa ina kala hagayeen waxaan rabaa aqalka sare inaan uga mahad celiyo sida ay isugu dayeen oo uu hogaamiye u yahay guddoomiyaha aqalka sare dadkan iyo dalkan in la isku wado dowladdu hogaaminteeda ay qaadato la mideeyo labada aqal la isu keeno war waddankani seebuu ku badbaadi karaa inay ka shaqeeyaan aqalka sare bacdamaa ay iyagu lahaayeen matalaadda dowlad goboleedyada waxaan aada iyo aada ugu qanacsanahan u soo dhoweynayaa roolka ay qaateen inuu yahay mid xusid u baahan in loo mahad celiyana u baahan markaan halkaas sano ee hadda doorashada ka soo gudubtay Jubbaland waxaan filayaa inaad kulligii wada ogtihiin dowladda maanta Jubbaland maamulka dhisan labada madaxweyne ku-xigeen marka laga tago waa xubnihii hore caretaker bay ku dhisan yihiin maxaa intaas sababaya liiska maalintii 10aad buu diyaariga ahaa Jubbaland markii hore dib u heshiisiin bay ku dhisantay waad ogeydeen maantana waxaan intaa u jiitamaynay waxay ahayd inaan dadka reer Jubbaland isu keenno dowladdii isu nimaadno kugusan aanu wax ku dhisno wax la isku waafaqsan yahay ee wax Soomaali ka dhaxeeya ay noqoto wax aan wax ku soo dhisayo taasaa waxay ahayd midda qaadatay waqtiga intaa leeg ee sanadka ku dhow ama sanadka ah inaan intaa dib u jiitamayno waxaa keenaysa waxay ahayd raadin aan raadinaynay dadka Jubbaland dhexdooda inay dhibaato ka dhicin dowladdii annaguna inaanu heshiino Soomaali inaan ugu tanaasulno meesha u socotay waxay u baahan tahay inaan kala shaqeyno waa ilaahay mahadii maanta haddii ay taallo isafgarasho iyo wada hadal aanu isugu nimid ma ayna jirin muddo sanad iyo bar ama 2 sano ah kulan xataa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inay isugu yimaadaan iyadoo ay siyaasadda doorashooyinka laga soo bilaabo koonfur galbeed iyo galmudug iyo Jubbaland iyo intaas la siyaasadeynayo bolisigaas uu jiidayay waxaa adkaatay xataa intii la isu yimaado dadkii talada waddanku ay ka dhaxaysay ee labada level ee labada dowladeed kala ahaa inay intay isu yimaadaan ay wada hadlaan ay wax isweydiiyaan oo talada waddanka la isweydiiyay waxaa soo kadisay markii dambe xilligii doorashada oo la gaaray damacyadii oo batay intii banaanka ka taagneed oo nin waliba qoorta soo taagay iyo xaaladda oo nina una damaanad ka bixin karaynin waqtiga ay noqonayso taasi waxay keentay markaa in aan dib u abaabulno bal in la isu yimaado oo ay suurto gasho dowlad goboleedyadina inay isu yimaadaan dowladdii federaalka madaxdii aanu yeedhanno la wada hadlo oo dhuusamareeb shirarkii la isugu imanayay la isugu yimaado muhiimad bay lahayd shirkaa dhuusamareeb 2 xaalado muhiim buu ku ahaa waa midda koowaad in dowlad goboleedyadu intay isu yimaadaan ilaan dowlad goboleedyadu inay shiraan dastuurkaa ogol
waa shay dastuurku qorayo inay iyaga dowladda federaalka fulinteedu shiraan oo dastuurka ogol waa shay dastuurku qorayo xilliga la isu imanayo kolba duruuftay ku xidhan tahay inaan isu nimaadno waxaan uga mahad celinayaa markaas kadib inaan u yeedhno oon ugu baaqno madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii xilligaa joogay inay nagala soo qayb galaan shirkii dhuusamareeb oo aanaan go-aan soo saarin ka baxsan doorashadu inay dhacdo xilligeeda inay ku dhacdo in is-ogol lagu tashado wax la isla ogyaha la isla qaato oon uga mahad celinayno reer galmudug iyo reer dhuusamareeb gaar ahaan iyo madaxdooduna siday u qaateen ay u xamileen muddadaa dheerayd iyo culayska intaa leega ku dhacay oo siyaasi iyo ganacsade iyo hooye iyo dhallinyara midkuba ay qayb ka ahaayeen intaa wixii ka dambeeyey jijiitan iyo shaqo aqalka hoose uu gaar la noqday oo ay keentay kala qaybsanaanta labada aqal inaad moodo waddanku inuu dib ugu noqday noocii ilaan aqalkan sare wuxuu matalaad ku yahay nidaamka federaalka ah wuxuuna matalaa isteydyada markii la dhisayay waa laweyda 2016 bay ahayd sucubaad badan baa lagala kulmay oo maxay ahayd waxaa cuslaatay in isteydyadii marka hore la dhiso ood garanaysaa dhibkii laga soo maray waxaa cuslaatay haddana 54 gobol senatar ee dastuurku uu qorayey ee ahayd bayska u ahayd markaa 18 gobol oo misaddexa qaabkii loo qaybin lahaa waxaad ogtihiin maanta jubbaland iyo koonfur galbeed oo misaddex gobol ah 8 bay leeyihiin dan bay ahayd inaan qaabkaas loo qaato 2016 oo isteydyadana sidaa loo waxeeyo ciddii markaas waxoogaa culays kale ka jiran aan waxayno waxaa ka mid ahayd oo aqalka sare iyo xusitaan iyo waxalba ku lahayd caasimadda oo xilligaas dowladdaas xilligaa taagneyd culays badan uu ka jiray dhisidda dowlad goboleedyadii iyo aqalkii sare qaybintiisii iyo in caasimaddii la qeexo maqaamkeedii oo golihii shacbiga xilligaa jiray markaas muuna jirna aqalka sare ay go-aan ka gaadhaan la qeexo maqaamka caasimadda sababtoo caasimaddu haddayna lahayn maayar iyo ismaamul iyadoo isxukunto ee noqonaysa gobernatoore marna la magacaabayo marna la waxaynayo waxaa adkaanaysa matalaadda ay leedahay iyo dowladnimada nooca ay caasimadda u dhigmaysa labadaba inay culays ku noqoto waxaan aada uga doodnay oo aan aada u celcelinayna waxay ahayd war intaan shaqada kala joojinno oan u sheegnay guddoomiya jawaari iyo golihii shacabka way sahlan tahay inaad qeexdaan maqaamka caasimadda in loo caddeeyo inay doorato gobanarkeeda in loo caddeeyo xuquuqda ay matalaad cid walba ku leedahay in loo sameeye arrinta caasimadda hala waxeeyo qof waliba marka wakhtigu dhammaanaya marka waxaa lagu mashquulaa see noqon iyo see la yeelaa iyo kan laakiin xilligaasi waxaan markii dambe lagu daayey baarlamaankaas baarlamaanka ku xigay labada aqal markay isu yimaadaan shaqada ugu horreysay qabanayaan inay noqoto dhammaystirka dastuurka maqaamka caasimadda iyo wixii kale markaa la yaala inay noqoto waxa ay go-aanada degdega uga gaadhayaan waxay la tahay labada gole wada shaqayn la-aantooda iyo wakhtigay qaadatay wuxuu keenay in wax badan oo u yaalla wax laga qaban waayo oo jiitanku maanta uu halkaas soo gaaro maanta waxaa laga yaabaa inaad laysu weydiinayey axmed iyo siciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sabab tahay shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray dhuusamareebtu wadahadal baan ka galnay prime minister baa ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liirgareeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo fulintu ay mas-uuliyaddooda qaataan guddidaasi ay isugu tagto garoowe la isu yimaado shirka kale la qabto within annagoon ka soo dhammaanin meeshii waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo 7 daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku golihii shacabku uu meesha ka saaray war sidee wuxuu jiraan waxaa intaa ka sii waxaysan soomaalidu qabaa'il bay wax ku qaybsanaysay hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina la soo magacaabo ilaa shalay waxbaa lagu fadhiyey kabacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa
oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey innagu intaan wada hadalno guddidu farsamo bay noo keenaysay aan wada hadal galno iyadoon cudurdaaradii weli la iska qancinin cillado kalena ay iska jiraan baa shirki dhuusamareeb la isugu tegey madaxweynaha ay iclaamiyeen ma ayna noqonin inaan tago asbaaba la wada ogyahay oo jiray siciidna ma tegin markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xidhay xaaladdii caafimaadeen u jiray baan ka soo noqday garow waan isugu tagnay waxay noqotay in oo codsi ka yimaado madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu yimaado garoowe oon halkaa ku wada hadalno arrintaasi mayna noo noqonin sax sababtoo madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii jamhuuriyadda tabashaa jirtay xawar baan shalay ugu yeedhay mayna imanin dhuusamareeb bay iigu yeedheen waan u tegey anaa tegey mayna ii imanin garow waan hadda ugu tegay annaga ceeb nagu ahayd soo maa taa waxaanu qaadanay inaanu annagu madaxweynu nidhaahno waxaan imanaynaa xamar annagaa kuu imanayna halkaasaan ku shiraynaa iyadaan isugu tegaynaa waxaan u tanaasulaynaa wax kastoo lanaga tabanayaan inaan ka dawbaxno waxaan tabanaynana inaan candhuufta dib u dhaqno taasaa keentay sababta xamar aanu nimid weliba soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaraha hooyadood geerida way ula sugay laakiin mareegta u dheer mareegta waa la wada yaqaanaa sooma ilaan hooyada iyo waxartu way wada dhiban karaan laakiin mareegtu waxarta qoortay kaga xidhanta way isku laabi kartaa annagu weli dowladda taagtaagnina way jirtay arrinta gobolka gado oo culays lagu haysayna way jirtay oo tabasha ka jirtay dhuusamareebna aan idhaan hoos u dhigno oo gaar noo ahay iyadoo intaasoo dhan jiraan qalbi fayoobina aanaan dowladda ku kala maqnaynba waxaan go'aansaday inaan xamar nimaadno oo siciid uu yidhi ilaa wa ilaa halkaasaan tegaynaa aan tagno aan qaadanay inaan xamar sidaa ku nimaadno aan nimaadna xamar arrintii gobolka gado guddi baa ka hadlaysay waxaan rajaynayaa intaanaan halkan ka tegin inay hawshaasi dhammaanayso oon dowladda wax isla gaadhayno oo waxyaalaha aanu ka wada hadalay meel la gaadhsiin doono oo si niyad wanaaga barnaamijkaasi uu hadda ku socdo arrintii guud maaldood waad arkayseen waxoogaa hadallo la soo twittergareeyey siciid iyo axmed iyo shir baa la diiday de waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd nimanbaa ka maqnaa inaan annagoo saddex haddana intaan shirnay hadhow aad maxamataan oo tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysee masiirka iyaga maa ka talinaya warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communikee soo saaro nooca doorashada ka soo hadallo warqad kale aan soo saarray waxay macno tiraysaa nooca shirku uu yahay iyo imaatinkaiyagii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweynow waan joogaynaa xamar waa la yimid cid kaga xigto madaxweyne marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeelo haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalno labada aqal ha laysu keeno golaha shacbiga ha la soo reebo meeshuu isbiirku ku socdo dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido ha la wada hadlo dadka siyaasaddaani ay ka dhaxayso kulligood goobta ha ku wada hadlaan laakiin labadii aqal oo is-ilowsiinaya isugnoorgaraynaya dowlad goboleedyadii oo laba khaanadood lagu kala ridayo madaxdii oo buuq iyo dhibaato kale ay jiidayso wax macnaa nooma samaynayso in la yidhaahdo doorashaa laga hadlayaa waxaa asalku uu yahay in marka hore midnimada la ilaaliyo siyaasaddana laysu keeno waxaa jira niman madaxweyneyaal soo maray damaci uuna ka dhammaana weli da'yar iyagoo laftoodu meeshaas madiine korkeeda degan damcii uu ku jiro xaqna oo leh inay siyaasaddii iyo taladii wax ka geystaan waxaa jira axsaab layidhi samaysta saana wax laydinku samaynaya waxaa jira dad badan oo damacaana wada fiirinayo aragtida aan qabaa waxay tahay maanta qof ka maarmaa ma jiro aan isu wada nimaadno ha la dhammaystiro waxa yaalla madaxdii ha loo yeelo
baraha ministerka maqanaya hadhow qolaya odhan doonta ariha qodkaaga xageed geyseen hala keeno waxaan isku ognahay aan wada dhammayno intaan doonna aan joogno ceeb maaha inaan muddo badan joogno dagaal baa nagu socda culays siyaasadeed baa jira waxaasoo dhan oo jira maanta culays naguma haysa inaan xamar joogno sababto xamar wataan ku soo koray joogisteedana aad baan ugu faraxsanahay annagoo wax isku og markaa aan dhammaysano yaa la isugu soo noqonin oo madaxweynaha yaan la xamadna la odhan madaxweynuhu wuxuu la jiijida extension buu rabaa oo golaha shacabka yaan la odhan mursal iyo muudda extension bay raadinayaanoo golaha aqalka sare sababay uga cararayaan oo dowlad goboleedyada yaan la xamadna waxay doonayaan inay baarlamaan iyo ujaabka ku wataan intay la soo baxaan inay raggaan hadda fadhiyo wada caydhiyaan ay kuwa kala keenaan oo xanta intaan iska dayno innagoo soo fadhina wax isu sheegno mayna saas ahay innagoo soo fadhina oo aan isarkayno oo wada joogno oo la isxamanaynin realitiga ha laysu sheego markaa kadib waddankaan aan badbaadin hal accident oo dhacay waddankaan dhibaato ku yahay waxaan garanaynaa shalay waxaan soo marray ma doonin inaan dib ugu noqono raggaan waan soo dagaalanay waa la soo heshiiyey meel badan baa la soo maray waxaan maanta ka wada shaqaynayna waa soomaalinimada asalkuna waxa weeyaan in aan isu wada nimaadno wada tashanno saacadaha aynaan fiirinin waqtigu uuna cidhiiri inagu noqonin aynaan oranin waqti baa nagu socdiyo aan wax dadisan qof waxaa la yidhi nin hulaab xun in wax qarsan baa la moodaa qolada dowlad goboleedyadu hulaabta xun ha iska daayeen xildhibaanada iyo sanatarada indhaha u guduudinaya leeyihin sidanaan yeelayna ha joojiyeen qolada golaha shacabku waxaanay gaar iskaga dhigayaan iyo ay la ordayaan hulaabta xun ha daayeen madaxweynuhu labada aqal iyo sida uu wala dhaqmay iyo dowlad goboleedyada iyo hulaab xun loo arkin isaguna ha joojiyo war soomaaliyey waxa inoo yaalla waa naqaanaa waxa inaga dhexeeyana waa naqaanaa meeshaan maraynana waa naqaanaa waddankaani xasiloonidiisa iyo deganaanshihiisa waxay ku xidhan tahay kolba isbeddelka siyaasadeed iyo xasiloonida siyaasadeed see u dhacayso nin wal oo yimaadaa damac kalaa ku jira damaca ku jira waxaa weye inuu meesha kusoo noqdiyo inuu sii joogo nasiibkiisu qaadan inaan waqti isu qabanno la yidhaha berri bay dhammaanaysa saa dambe ay dhammaanaysaa waxaa ka asagsan waxa heshiis lagu yahay in wax lagu gaadho 2016 waxaan u malaynayaa 7 bilood bay qaadatay xaaladii aan ku jirnay adaygeedu inaan technically aanan annagu shaqo ku lahayn markaas National Leaders Forum in la gaadho oo halkaa lagu gaadho hadday niyad wanaag jirto technically wixii looga shaqaynayo waan ka shaqayn karaa laakiin haddii bahashu ay armaajooyin iyo khaanado ku kala jirto waa la istuumayaa soo maa aan tuunkaa meesha ka bixinno waxaan rabnaa inaan idiin sheegno annagu labada aqal midna dhibaato uma qabno 51 xildhibaan baa ka soo baxay 8 senatar iyo 43 xildhibaan waa laga yaabaa inaan tabto idhaahdo nimankaasi markii dagaalka adag kugu socday in yar baa qaylqayliysa inta badan way aamusnayd laakiin waxaan maanta cidaan wax u qabnaa ma jirto qof maanta aan wax u qabo iyo qof maanta calafkiisa iyo nasiibkiisa midna aan ka hor istaagayaa ma jirto waayo waxaan loo samaynaya qof waliba waxaa lagu meeshuu u labay wuxuu mooday gurigoodii dan baa qof walba tusaysay aan isu soo noqonno aan wada tashanno odayaashaan aqalka sare jaal cabdi qaybdiin iyo oday muuse iyo dadkii xamar joogay iyo waan soo garanaynahay ha laga shaqeeyo dadka xanta habeenkii ha la joojiyo maalintii wixii la sheegay ha la sheego waddankaan ma rabno inuu dib meel kale ugu noqdo aan isu waxayno weliba aqalka sare waan idinka mahad celinayaa tanaasulka dadnimadu ay ku jirteed samaynaysaan idinkoo shaqadii aad lahaydeen wax badan oo ka mid ah siyaalo badan ay waxu jirjiraan qof kasta oo siyaasadda saamayn kule taladiisa ha la siiyo taasaan u nimid taasaan u joognaa waqti naguma socdo dagaalka xagga aan kaga jirna widhaanaan dhib naguma aha dad baa haya arrintii gadana insha allahu iyo wixii jubbaland aan tabanayni madaxweynuhu madax adayg badan iyo tabasho badan baa jirta naga tabanayaan ilaa annagu sheekh xuseen furama ninoo keligaya eedda qolo keliya ma saarana wixii lanaga tabanayaan diyaaru nahay inaan aqbalo waxaan tabanaynaan rabaa in lanaga
lanaga dawbaxo idinka laftirkiina waxaad noo qabtaan iyo nimanka dowlad goboleedyadu aqalkan iyagu matalaya warkooda iyagoo hoosta ka wadwato way iloobeen aqalkii sare haddaan u joognaa aqalka sare aan odhanaynaa siyaasadda iyo dantana aynu heshiis ka noqono aad baan idinku rajaynayaa wanaag khayr badan baan idiin rajaynayaa gudoomiye waa warkaygu intaasu igaga dhigay waad mahadsantii